السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. دقيستيال كسو دوادا برامج كمدش عيارها نصر حسن محمد نصرين يا دلس عدسين دون تبرت عيارها وتخلص عن دونتان فضلا هدياتكم عصبتا يوتيوب جانال كينا سبسكرايب لايك انشاء مركل كسو دو برامج كينا مدش barnaamijkeena waxyaabaha ugu waaweyn aan kaga hadli doono waxaa qayb ka noqon doona kulamadii xiisaha badnaa ee tartanka Champions League laga ciyaaray habeennimadii xalayto kulamada caawa la ciyaari doono iyo wararka ugu waaweyn isboortiga ayaan fiirin doonaa balse sheekooyinka la yaab kale aan ku bilaaban doono barnaamijkeena waxaa qayb ka noqon doona kulamadii xalayto tartanka Champions League ka dhacay natiijo xoogan kama soo bixin marka loo fiiriyo labada magaalo ee gobolka Marseille iyo magaalada Lyon ee dalkaasi Faransiiska maadaama ay natiijooyin isku mid ah ka soo baxeen ciyaarihii halkaasi ka dhacay haddii aan ku horeyno garoonka Anfield Road ciyaartii ka dhacday kooxda kubadda cagta Liverpool Bayern Munich ayay soo dhaweeyeen tartanka Champions League lugta koowaad ciyaartaasina waxay ku soo dhamaatay barbardhac eber ah dhageystayaasha waxaan ka raadin doonaa asxaabta codkayga aan weli ahayn sida loo baahnaa ciyaarihii Anfield ka dhacayna dibadii aan ugu laabano wax ka soo ziyaada ma jirin marka loo fiiriyo in garsoore Gianluca Rogi ciyaartii dhexdhexaadiya uu ka ahaa 90 daqiiqada barbardhac eber ku soo dhamaatay kaliya ciyaartooyda kale ah Joshua Kimmich inta lagu magacaabo Jordan Henderson ayaa min laba jaal kala qaatay daqiiqadii 28aad iyo 55aad ee ciyaarta Anfield Road waxa uu soo daawashay 5,000 waa raado 52,250 taageerayaal waxayna dib isaga laabtay guriyooda ayagoo xalayto aanan arkin hal gool oo noolnahay markii loo fiiriyo in labada kooxood ay ku heshiiyeen barbardhac eber haddii aan fiirno labada tababare ee kala ah ninka lagu magacaabo Niko Kovac oo hogaamiye kooxda kubadda cagta Bayern Munich ciyaartooy badan ayuu bedel u isticmaalay sida Frank Ribery xidig lagu magacaabo Sanchez iyo Rafinha balse waxba kama soo ziyaadin marka loo fiiriyana tababar Jurgen Klopp isagana sidoo kale ciyaartooy badan ayuu bedel u isticmaalay sida xidig lagu magacaabo Miller iyo Origi shaxaha labada dhinac ay xalayto kusoo duulan tageen hadii aan fiirno Neuer ayaa kusoo bilowday Havertz Sul Kimmich iyo Alaba Martinez Alcantara Rodriguez iyo xidig lagu magacaabo Calabria Lewandowski ayaa hogaamiye ka ahaa weerarka kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich markii aan fiirno kooxda kubadda cagta Liverpool Alisson Becker ayaa kusoo bilowday Fabinho Joel Matip Alexander-Arnold Robertson Hernandez Wijnaldum Keita Salah Firmino iyo Mane kama badanin ayagan inay wax badan ay taagsadaan ama ay beegsadaan shabaqa uu gool ilaaliyaha ka yahay ninka reer Jarmal balse ugu dambeyntii labada kooxood waxay ku heshiiyeen barbardhac eber sheeka waxay noqon doontaa garoonka Allianz Arena ee magaalada Munich kadib markii labada kooxood ay dib isugu arkaan ama ay isku arkaan lugta labaad ee tartanka Champions League isla sidoo kale natiijo aan fiicnayn ayaa ka soo baxday ciyaartii garoonka Lyon ka dhacday kooxda Barcelona waxay ka soo laabteen iyaga oo aan wax gool laga soo dhalin ciyaartaas waxa kaliya laga calaameyn karo waxay tahay in Barcelona laba jaal ay qaateen ciyaartooyda kale ah Roberto iyo Semedo ayaa qaateen garoonka caalamiga ee magaalada Lyon dalka Faransiiska garoonka lagu magacaabo Groupama Stadium 57,889 taageerayaal ayaa soo xaadirtay balse gabi ahaan waxay isaga laabteen iyagoo aan wax gool arkin Barcelona Sterling ayuu ku soo bilaabay tababaraha kooxda Barcelona ninka lagu magacaabo Leicester Valverde sidoo kale BK Lenglet xidig lagu magacaabo Alba iyo waliba Nelson Semedo ayaa ahaa ciyaartooyda kooxda Barcelona oo ciyaarta rakatay Busquets Roberto Luis Suarez Messi iyo Dembele ayaa u ciyaarta kooxda kubadda cagta Barcelona balse ugu dambeyn Lyon faa'iido weyn ayaa qabtaa Barcelona kama liidato marka loo fiiriyo labada kooxood inay ku heshiiyeen barbardhac eber markaana waxaa fiirin doonaa kulamada laga ciyaari doono tartanka Champions League
laba kulan oo xiiso badan ayaa caawa la sugi doonaa iyadoo weliba garoonka caalamiga ah ee magaalada Madrid Wanda Metropolitano ay kusoo dhaweyn doonto kooxda kubadda cagta Atletico Madrid kooxda kubadda cagta ee Juventus waxaana is arki doona Massimiliano Allegri iyo weliba ciyaaryahankii hore ee kooxda Inter Milan ninka lagu magacaabo Diego Simeone markaan fiiriyo labadani kooxood ciyaartooyda ka maqnaan doonta dhaawac ahaan Juan Cuadrado iyo Sami Khedira uma ciyaari doonaan kooxda kubadda cagta Juventus halka xidiga lagu magacaabo Lucas Hernandez iyo Koke shaki kaga jira inay qayb ka noqdaan ciyaartooyda Diego Simeone Jan Oblak ayaa kusoo bilaaban kara sidoo kale Godin iyo xidiga lagu magacaabo Jimenez ayaa noqon kara shaxda kooxda kubadda cagta ee Atletico Madrid Saúl Niguez Rodrigo iyo Correa waxaa ka horeyn doona Koke isagana kulankan shaki kaga jiro halka Antonio Griezmann isagana uu noqon doono iyo weliba Alvaro Morata ciyaartooyda u ciyaari doonta kooxda Atletico Madrid Juventus hogaamiyahoodii ninkii dabiiciga ahaa ee weliba ama legendigii weynaa kooxda Real Madrid ninka waa xidigii hore ee kooxda Madrid ninka lagu magacaabo Ronaldo ayaa garoonka uu jecel yahay soo booqan doona waana Wanda Metropolitano Ronaldo ayaa hogaamin doona Mandzukic ayaa qaybta hore isagana qayb ka noqon doona Paulo Dybala Bentancur Pjanic Matuidi Sandro iyo weliba ciyaartooy badan ay ka yimid yihiin Chiellini iyo Bonucci iyo Congelo waxay qayb ka noqon doona ciyaartooyda kusoo shirtagi doono tababaraha kooxda kubadda cagta ee Juventus ciyaarta markaan fiir labadan kooxood kulamo waxaa jira hore ay wada ciyaareen markaan fiirno kulamada isugu dambeeyay labadan kooxood ay ciyaareen waxaan xusuusanaa in barbardhac eber iyo eber ay galeen wuxuuna ahaa kulan ka tirsanaa UEFA Champions League sanadii 2014 halka markii ugu dambeysay kooxda kubadda cagta ee Atletico Madrid ay soo waa kooxda Juventus ay soo booqato guriga kooxda kubadda cagta Atletico gool iyo eber ayaa looga badiyay Juve xilligaasina waxaa xusuusanaa labadii kulan ee is arkeen ama labadii is aragba in ay soo baxday kooxda kubadda cagta Atletico Madrid oo Juventus xilliga la maxsalaamay dib u xusuuso waa tartankii ay finalka gaareen Atletico Madrid Champions League balse nasiib daro Real Madrid ay ka qaaday balse marka la ay isku arki doonaan Champions League labada kooxood ee Juve iyo kooxda kubadda cagta Atletico Madrid sidoo kale garoonka caalamiga ee Vitality Stadium ee ku ciyaarta kooxda Schalke kulan kale oo xiiso badan ayaa ka dhici doona Manchester City ayaana booqan doonta kooxda kubadda cagta ee Schalke tababaraha hogaamiye kooxda Manchester City ninka lagu magacaabo Guardiola waxaa u diyaar ciyaartooyda kale Ederson Welker Otamendi Laporte iyo xidiga lagu magacaabo Zinchenko xidiga lagu magacaabo Kevin De Bruyne Fernandinho Silva kale iyo weliba Aguero iyo Sterling ayaa qayb ka noqon doona ciyaartooyda kulanka Champions League la ciyaari doona kooxda kubadda cagta Schalke gabi ahaan kulankan waxaa seegi doona Claudio Bravo John Stones Gabriel Jesus iyo Benjamin Mendy halka Fabian Delphine uu shaki weliba isagana uu seegi doono Vincent Kompany isagana dhaawac ayuu kaga maqan yahay kulankan inuu ciyaari doono uma badna balse waxaa leeyahay ciyaartooy badan ayaa jaanis u haysta kulankan inay u ciyaaraan kooxda kubadda cagta Manchester City labadan kooxood markii ugu dambeysay ee tartan heer caalami isaga hor imaadaan waxay tartanka UEFA Europa League 2018 markaasna Manchester City ayaa 2 gool iyo eber ku badisay kulankan waa kulan kale oo xiiso badan nasiib waxaan ayaan u rajeynaynaa Manchester City sidoo kalena waa mid ka mid ah kulamada ugu xiisaha badan ee championka caawa laga ciyaari doono marka laga soo tago Atletico iyo Juventus oo ah kulanka ugu xiisaha badan ee championka laga ciyaari doono caawa hagaag asxaabta halkaas ayaan kaga bixi doonaa tartanka Champions League markii aan fiirino akhbaaraadkii ugu dambeeyay waxyaabaha ugu waaweyn waxaa kamid ah kooxda kubadda cagta ee Chelsea ciyaaryahanka kumeel gaarka ah ciyaaryahanka xidiga amaahda ee kooxda ninka lagu magacaabo Mateo Kovacic wuxuu diyaar u yahay inuu baaqi ku sii ahaado kooxda kubadda cagta Chelsea halka kooxda Liverpool ay diyaar u yihiin soo qaadashada xidiga kooxda Sporting Lisbon iyo xulka qaranka Portugal xidiga lagu magacaabo Bruno Fernandes kaasi oo lacag xoogan ay ku rabto sidoo kale waxaa leeyahay kooxda Liverpool hadda ay diyaar u tahay hadal la sii furan Sporting Lisbon si xilli ciyaareedka marka uu dhamaaday gacanta ugu soo dhigaan xidiga wada badan xulka qaranka Portugiiska
ninka lagu magacaabo Bruno Fernandes. ugu dambeyntiina Manchester City waxay diyaar u tahay heshiis waqti dheer inay ka saxiixaan difaaca xulka qaranka Faransiiska ninka lagu magacaabo Aymeric Laporte. xilli ciyaareedkan bilowgiisa ayay kasoo qaateen kooxda kubadda cagta Atletico Bilbao isagoo weliba loo arka mid kamid difaacyada dhexe kuwooda ugu wanaagsan ee Premier League ka ciyaar. ninka lagu magacaabo waa tababar Guardiola wuxuu soo bandhigay qorshe ciyaartooyda muhiimka ah ee kooxda looga saxiix doono heshiis waqti dheer ee kooxda kusii joogi doonaan. barnaamijkeena halkaas ayuu inooga egyahay. waxaan mar kale cudur daaran doonaa codkaygaan fasiixiyeen tan intan barnaamijkaa lamid ah wada kaga kulmi doonana waxaan idinkaga tagayaa nabadiino.